waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeysay iyadoo waayadii dambe waddanka Ingiriiska gebi ahaanba uu oolelinayay inuu tarxiilayo dadka muhaajiriinta ee dhinaca badda ka soo galay iyo waliba dadka markaasi dhinaca wadamada reer Yurub ka soo galay ayaa dawladdu waxay maanta soo saartay bayaan ay gebi ahaanba dadkaasi ku tarxiilayso dadkii ugu fara badnaa oo Soomaali ay ku jiraan ayaana laga aruuriyay taleefamadii gacanta ee markaasi ku shaqeynayay internetka dad aad u fara badan ayaa gebi ahaanba loogu daatay goobihii ay dawladdu ku haysay ciidamo si gaar ah u tababaran ayaana la geeyay goobaha markaasi dadka lagu hayay oo iskugu jiro hoteelo iyo waliba kaama markaasi dadka lagu hayay dad fara badan oo Soomaali iyo waliba dad wadamo fara badan oo Afrikaan u badan ayaana gebi ahaanba halkaasi laga soo tarxiilaya isbuucan gudihiisa sida ay sheegtay dawladda waddankaasi Ingiriiska waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa cod markaasi oo mid kamida dadka markaasi sugayo in la celiyo uu noo soo duubay sidoo kale tan uu la wadaagay warbaahinta Wacana Media ayaan halkan kugu la wadaagi doonaa balse hadday tahay markaad kugu horeysay barnaamijkan ku soo gaaro si shaqare oo la wadaag asxaabtaada kale aynu ku bilownaa iyadoo waayadii dambe ay taagneyd hadalhaynta markaasi waddanka Ingiriiska uu ku tarxiilayo kumanaan qof oo markaasi soo weydiistay magangeliyo ayaa gebi ahaanba dawladdu waxay sheegtay in isbuucan ay tahay kama dambaysta dadkaasi lagu celinayo waddankaasi Rwanda iyadoo ay jirtay dhowr mar in dawladda Ingiriiska iyo maxkamaduhu ay isku qabsadeen arinta dadka lagu tarxiilayo dadkan magangeliyada soo doontay ee dhibaatada ka soo cararay wadamadooda ka soo tagay in markaasi gebi ahaanba la tarxiilo waxa uu oolelinayay xisbiyada markaasi u tartamayo xilka markaasi waddankaasi ugu sareeyo iyadoo dawladda Ingiriiska markaasi ay qabsatay dawlad shuuciya oo gebi ahaanba necab arrimaha muhaajiriinta iyo waliba soo kale wadamada markaasi dadka wadamadooda ay dhibaatadu ka jirtay ee markaasi magangeliyada weydiisanayo gebi ahaanba ka soo horjeedsaday ninkan markaasi ugu sareeyo waddankaasi Ingiriiska ee ra'iisul wasaaraha iyo waliba xisbigiisa ayaa gebi ahaanba diiday in qof muhaajiriina gebi ahaanba markaasi sharci la siiyo sidoo kalena waddankaasi uu sii joogo dhowr mar ayaana maxkamaddu arintaasi ay ka diiday laakiin ugu dambeyn waxaad moodaa in uu isticmaalay awood markaasi xadaafa waxaana gebi ahaanba la sheegay in kumanaan qof oo Soomaali iyo waliba muhaajiriin kale iskugu jiro in markaasi la soo tarxiilayo la geyn doonana waddanka Rwanda waxa dhinaca kaleeto dadkan ku jiro dad fara badan oo Soomaaliyeed oo waayadii dambe aan ogeyn in dadku aad ugu soo qulqulayeen waddanka Spain iyo waliba soo kale wadamada reer Yurub oo markii dambana ka yaacay oo Ingiriiska u yaacay ayaa iyagana qayb ka ah dadka markaasi la celinayo ee gebi ahaanba laga dejinayo waddankaasi Rwanda dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markaasi 2023 soo galay waddankan Spain ayaa gebi ahaanba ka yaacay dhinaca kale dad fara badan oo iyagana dhinaca waddanka markaasi Faransa ayaa iyaguna markaasi ku jiro dadkan gebi ahaanba la tarxiilayo ee la geenayo waddankaasi Rwanda arintan waxay soo baxday isbuucun kadib markii dhowr mar markaasi dawladda iyo maxkamaduhu ay arintaasi ka fadhiisteen isla markaana ay isku mari waayeen laakiin waxaad moodaa in markaasi maxkamadaha lagu qanciyay in waddanku uu gebi ahaanba qaadi karin arrimahan markaasi muhaajiriinta baduna waxaad moodaaba inay noqotayba meel bari camal waxaad moodaa maalin kasta intaas oo kun oo markaasi muhaajiriina ayaa waddanka Ingiriiska galiyo waana arrimo markaasi mashaqo ku noqday dawladdii meel ay wax dejiso ayay gebi ahaanba weyday sida ay markaasi ku doodayaan dadka markaasi ra'iisul wasaaraha iyo waliba dawladda haatan ka jirta waddankaasi Ingiriiska arrimaha markaasi immigration-ka iyo waxyaabahaasi ka soo horjeedo ee dawladdaasi la dhacsan dadkan la tarxiilayo ee markaasi la celinayo waxa kamid ah ninkan oo gebi ahaanba sheegay in uu isaga iyo waliba asxaabtiisu ay ku jiraan ee dadka markaasi la tarxiilayo sidoo kale tana ay sugayaan isbuucan gudihiisa in gebi ahaanba laga dejiyo waddankaasi Rwanda wal codkaan isla dhageysano kadibna qaybka dambe ee markaasi barnaamijkeena aan iskugu soo laabano walaal waxaynu nahay dad fara badan oo laga soo qabtay koobihii lagu hayay kaamamka dawladda ayaa go'aamisay in ay nageyn doonto dal ku yaala Afrika sida Rwanda horaan ay u sheegtay waa sax waxaynu nahay dad fara badan sida Soomaali iyo ajaanib fara badan oo ayagana ka yimid qaaradda Afrika Soomaali fara badan waynu nahay oo hadda halkan lagu hayo ilaa hadda maalinta la geyn doono dhankaasi laynama sheegin waxaynu nahay dad ka soo galay dhankan iyo badda sida Faransa doonta ka soo raacay ku yimid UK si sharci darrada waxa u badan dhalinyarada ka timid ka soo gashay maalmihii ugu dambeeyay dalka Spain oo ka mid ah Yurub iyo kuwo kale oo fara badan oo horaan halkan ugu sugnaa
sidaad ma ninkan maqlaysaanba waxa uu horta horey ka mid ahaa ninkan dadkii kasoo degay waddanka Spain islamarkaana ka tallaabay badda u dhaxaysa waddanka Faransa iyo weliba sidoo kale Ingiriiska waxaana uu markaasi sugayay in markaasi processkiisu uu bilowdo sidoo kale tana uu ka mid noqdo dadka markaasi ay waddankaasi u qaatay laakiin gabi ahaanba waxaad moodaa in arrintaasi socon weyday dad fara badan oo ka tallaabay xadka Faransa iyo weliba u dhaxeeya waddankaasi Ingiriiska dabcan biyaha badda maray ayaa gabi ahaanba markii ay arrintan maqleen ka cararay oo aaday dhinaca waddanka Ireland si kastaba waxaad moodaa in xaaladda waddankaasi Ingiriiska iyo weliba go'aamadii waayada dambe ka soo baxayay ee ahaa in dadka la tarxilayo inay si toos ah ay markaasi ay u dhacday oo arrintii ay u dhawowday dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa arrintaasi dhalanteed u qaatay oo gabi ahaanba u maleynayay in waddanka Ingiriiska arrintaasi uu marnaba suurtagelinayn laakiin waxaad moodaa in go'aankaasi uu dhacay maxkamadii iyo weliba sidoo kale waanwaantii socotay ee dadkaasi lagu baajin lahaana gabi ahaanba dowladdu ay arrintaasi iska diiday si kastaba waddanka Rwanda waxaan ognahay dhowr mar inuu waddanka Ingiriiska u soo diray arrimo markaasi ku saabsan in gabi ahaanba diyaariyay goobtii dadkaasi la dejin lahaa iyo weliba sidoo kale dadkaasi wixii ay ku noolaan lahaayeen oo dabcan dowladda Ingiriiska dhaqaale fara badan ay waddankaasi ku siisay in gabi ahaanba dadka Rwanda la geeyo halkaasi laga dejiyo halkaasi ay ku sugaan processkooda haddii la qaadan waayana dabcan wadamadoodii Afrika ee markaasi ay ka soo yaaceen way u dhowdahay dabcan marka arrimahan markaad fiiriso waxaad moodaa in dadkii Faransa iyo weliba sidoo kale wadamada reer Yurub ka yaacay in ay markaasi xaaladdu aad ugu adag tahay iyagoo markaasi marxalado ka duwan iyo dhibaatooyin fara badan u soo maray in qaaradda Yurub ay soo galaan haddana markii ay u bogoayeen wadamada Spain iyo Faransa iyo weliba sidoo kale wadamada markaasi reer Yurub ay yimaadeen oo u tilaabay dhinaca Ingiriiska oo dabcan dadku waxay ugu tilaabayaan Soomaalida oo kaleeto luqadda Ingiriiska u fudud oo markaasi dad fara badan ayaa luqadda Ingiriiska ku hadlo sidaas darteed ayayna u doorbideen inay dhinacaasi ay aadaan bedelkii ay baran lahaayeen luqado kaleeto iyo weliba sidoo kaleeto dad ay markaasi ayna fahmaynin dad fara badan ayaana arrintaasi awgeed u aaday dhinaca Ingiriiska dabcan xaaladdu waxaad moodaa in dadkaasi aad ugu adag tahay aad ayaana uga xunahay in markaasi dadkan ayagoo markaasi sugayo barnaamijkoodii iyo weliba sidoo kale arrimoodii magangeliyada in markaasi la tarxiilo oo telefoonadii laga qaado oo halkaasi la geeyo waa arrimo markaasi horey u dhacay oo Mareykanku horey u sameeyay oo wadamo fara badan ay sameeyeen guud ahaan daawadayaal waxyaabo ka soo kordha qaybaha dambe wararkeena ayaa ku soo gudbin doona tan inta mid ku kulmi doona waxay ka taasdaa siyaamaanaal walaal waxaynu nahay dad fara badan oo laga soo qabtay koobihii lagu hayay kaamamka dowladda ayaa go'aamisay in ay nageyn doonto dal ku yaala Afrika sida Rwanda horaan ay u sheegtay waa sax waxaynu nahay dad fara badan sida Soomaali iyo ajaanib fara badan oo ayagana ka yimid qaaradda Afrika Soomaali fara badan waynu nahay oo hadda halkan lagu hayo ilaa hadda maalinta layna geyn doono dhankaasi laynama sheegin waxaynu nahay dad ka soo galay dhankan iyo badda sida Faransa doonta ka soo raacay ku yimid UK si sharci darrada